Kulanti wacan oo wanaagsan daawade. Ku soo dhawaaw qaybtii labaad ee sheekadii Wilwal. Qaybtii koowaad ee sheekada waxay inoo joogtay. Wax alle wuxuu uga jeeda garan maayo, laakiin jid kale ima furna inaan warka garaadka yeela ma ah ayuu isku dayay inuu gabadhii ku qanciyo. Qaybta labaad waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Gabadhii ayaa qadar gaaban aamustay oo ka fikirtay xujada aabaheed iyo raggii kale ee berrita haysata. Aamuska gaaban kadib ayay tiri maya aabbo ha qaadin cadka maxaa yeelay ma aha midka Wilwal doonayo. Odaygii ayaa ku adkaystay inuusan cad ka ahayn shirkan geynin. Gabadhii oo ku dadaalaysa in aabaheed xujada furo, ogna in cadka odaga taabto aanu ahayn kii xujada furi lahaa, ayaa mar kale tiri maya aabbo ha qaadinka aniga iga gadbo oo waxa qaadaa hunguriga. Odaygii ayaa amakaag iyo afkalaqaad qabsaday. Ma aniga ayaa shir hunguri la tago oo garaadka waxaas horgeeyo. Gabadhii waad waalatay, waxaana doonaysaa in aad aniga i waasho. Iyo hadallo noocaas ayuu gabadhii ku yiri. Aabbo, aniga iyo aamin ma rabo inaan kuu sheego sababta. Maxaa yeelay garaadka naftiisa ayaa kuu sharaxi doono ee adiga hunguriga shirka la tag. Wixii dambi ah ee halkaas ka dhasha aniga ayaa dusha u ridan doono, ayay tiri gabadhii. Odaygii ayaa dhiiranaanta iyo isku kalsoonida gabadha yar ka muuqata la yaabay. Kolka ayuu cabaar qadariyay fikradeedii. Waxa u muuqan waayay sababta yarta hunguriga u xulatay iyo waxa uu dheer yahay cadadka kale hunguriga. Wuxuu mar is yidhi waa dhalaalnimo iyo aragnimo la'aan, laakiin isla markiiba wuxuu xasuustay in gabadhu caaqilad weyn tahay, habada ay yaraatay talo ay soo jeedisay hadda ka hor lagu hungoobin. Mar wuxuu is yidhi adiga ayaa lagu xujiyey ee Allah kulahe arrinta go'aankeeda ku calool adeeg sida kula qumanayeen. Laba qalbiyeen iyo walaac ayuu coobaha istubay. Waxaa dhagihiisa ka guuxay wixii dambi ah aniga ayaa oogada u ridan doono. Mar dambe ayuu ku jawaabay waa yahay, waxaan qaadayaa hunguriga maxaa yeelay waxaan ogahay in aad tahay gabar aqli badan. Wuxuuna intaas sii raaciyay calool adeeg waa alla wehelkii. Yartii ayaa aad u farxday, waxayna dareensaneyd inay ku guulaysato furidii xujada garaadka, aabaheedna inay magac u soo jiiday. Farxad, isu hambalyeyn iyo ismahadin ayna muujin ayaa gabadhii saaqay. Waxaa intaas inooga dhammaaday qaybtii labaad ee sheekadii garaad Wilwal. Intaan ku kulmi doono qayb saddexaad oo tan oo kale ah. Sidaas iyo nabadgelyo.